safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa warqadaha aqoonsiga laga gudoomay. Igraan Shire ayaa mar kale warkan inoo faafaynaysa. danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Hindiya Mudane Axmed Cali Daahir ayaa gudbiyay warqadaha aqoonsiga ee danjirnimo iyadoo munaasabada looga gudoomiyay warqadaha aqoonsiga danjirnimo ay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee dalka Hindiya. munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa safiirka ku wehelinayay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Hindiya oo ugu horeysay hay-adaha safaaradda ahna ku xigeenka safaaradda Mudane Cabdifataax Cabdullaahi Nuur iyo xubno kale oo ka tirsan safaaradda. markii ay gaareen aqalka madaxtooyada ee dalkaasi Hindiya looga arrimiyo waxa halkaasi ay ku mareen hanaanka maamuska oo ay maraan safiirada. intaasi kadib ayaa danjiraha Soomaaliya ee dalka Hindiya Mudane Axmed Cali Daahir waxa uu kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha dalka Hindiya. ugu horeyn waxa uu safiirku gudbiyay dambaalka dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay dowladda Hindiya. madaxweynaha dalka Hindiya ayaa ugu horeyn dambaalka hambalyo u dirtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda cusub. sidoo kale waxay ka tacsiyeen weerarkii magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Xayaat ay ku qaadeen Al-Shabaab. ugu dambeyn madaxweynaha Hindiya Marwo Draupadi Murmu ayaa u sheegtay danjiraha in dowladda Hindiya ay diyaar u tahay in Soomaaliya ka caawiyaan abaaraha iyo cunto yarida ka jirta dalka Soomaaliya isla markaana ay garab taagan yihiin mar waliba.